markaas ku soo galay jeestay gabadhi labada gacmo gadaal inuu saa aaga xiray labada gacan ayuu ceej dhab ku siiyay markuu ceej dhab ku siiyay aniga banaanka istaagnaa wuxuu ugu dhahay gabadhu waa dhimatay ee xagee geena waxaan ku dhahay meesha geenaysa geeyon ku dhahay haday dhan waa ku celcelinay hadal waa maqdu weeday markaas uu ugu dhahay waa soo baxnay markaan soo baxnay gabadhu wuxuu dhigay nuur salaad meel u dhow buu dhigay gabadhi meeshaas uu dhigay horay uu dhigay markuu hore dhigay gaariga gadaal buu soo qaaday gabadhu gaariga ku aadiyay oo si saar waa ka sii tagay taayirka gaariga maray oo madaxu kaga istaagay dhinaca madaxu ku aadistay taayirka madaxu kaga istaagay waana ka sii dhaqaajiyay gaariga ma nooleen markay dhimatay marka uu soo ceejiyay gaariga gurigan gadaashiisaan soo marnay wadadan dheer baan soo marnay gabadhii halkaan aan dhignay fartaana arkaysay baan dhignay gabadhii madaxeeda saas buu yiri soo ma aan soo sawirada dhan waa la hayaa soo ma saas bay u tiiray gabadhii weli xataa qaarkeed dambe halkaas uu jiray madaxeeda halkaas uu yiray gacanna halkaas soo marnay taayirkii baa madaxa iga fuulay halkaasaana ka dhaqaaqnay wadadaan dhan baan marnay labadiina wada labadayna wada socono may gabadha marka hore meed bay ahayd wax dhaqaaqa oo meesha maray oo dada ama baabuur qaarkii wax dhaqaaqa gaari baa aragnay gaariga aniga leerka waa noo darsanaa meesha mugdigaana waxa way gaariga doo leer dansan yahay cidna ma aragto waxay adiga baaray adiga 5 saac meelaha tahay 5 saac محمد هذا واحد نجيبتي ماشي أنا قبلي ليش أنا نجيبته وماشي أنا أكو عشانه أكو عشانه ليش أكو عشانه أنا قلت له ها هل كان هو ماشي ميت كده أكو مرة إنك سانقرال عن هاي أو دم بيجينا عن قرنا إنه قبلي أنه ترى الله وهو تكني قبله وهو عند أبني أساس تاني قبلي أتانو وحنكو سمعنا إنه يدا نبحريسه أما إن حرته من دعويسه بانديدانه حصاد قبل واعجني وعنكو عجنا عمامة الله بدنا نعمل كقمرني أتانك قمرني قبل ويسوعد مركو ورا مكان سوعد عبارك بعد ويسوق عده عدي سوق عده قبلي وصوب حني عبارة نقول شغنه وسودقنا أني يقول كم تشن وعنكو يروارو أي قبلي مرحومتان قبلنا نادو ودي تكتو أم مجال تكتو وين دعويني تقول الحرس محاط الله قبل وحنا فلكم جرتوا سلا أقول سن كاري تاير كان لقطة كأدية مري إن قبلنا عن كترنا مش نيو قبل هذا ودي مت صاحب ودي مت الله ورحمته نيو نجحي ما يقاري تاير بيروي وايو قبل تاير كي أنا قلنا نودنسن أو عطنا قاري وحلير عن سنين قبل تاير كي هرا يتنتم بإسرائيل الله ورحمه waxaa caawa ilaahay mahadi ah kiiskii baraha bulshada la dhex wareegayay oo la marinayay oo ahaa gamanta yar oo meydkeeda laga helay duleedka magaalada Boosaaso ciidanka booliiska oo hogaaminayo taliyaha qaybta CID iyo saldhigyada iyo xafiiska xeerlaantu ay si wada jir u wada baarayeen in maanta uu soo gabagabay baaritaankii ilaahay kiis wixii macluumaad ah iyo kiiska conclusion kiisana aanu bariis wax ku wareejino maxkamadda darajada koowaad gobolka bari si ay go'aan uga soo saarto hadii ilaahay idmo waxaan marka hore mahad u celinayaa ilaahay ka soo koob ciidanka booliiska oo iska xil saaray inay naga gacan siiyaan xafiiska xeerlaantu markii hore gacanta ku hayay baaritaanka kiiska caawana si habeenimo iyo taliyaha qaybta hogaaminayo xeerlaantu ay la socoto lagu soo gabagabeeyay dhulkii gabadhaas waxyeelada loogu geystay la isxamal maayo kiiska caawa bari wuxuu sugayaa maxkamad maanta jarsidii hore la dhageystay laakiin gabagabadu bari way hadii ilaahay raali ka noqdo waxaan uga halkan uga faa'iideysanaya bulshada ka codsanaya cid kasto waxyeello u geysanayso bulshada inay booliiska gacan ka siiyaan hadii aan booliiska gacan la siin oo dhacdooyinka loo soo sheegin oo lala sheergan oo lala wadaagin oo hadhow la yiraahdo wax la qaban maayo hadii eedeeda dadweynuhu barbaad leeyihiin waxa fiican in dadweynaha booliiska inay gacan siiyaan iyo hay'adaha amniga xeerlaanta iyo maxkamadaha si xal cadaalad loo gaaro intaas waxaan ka codsanayaa dadweynaha aad iyo aad baa taliya u mahadsan tahay adii ciidankaagu annaguna waxaan ballan qaadaynaa xeeraan ahaan waajibka naga aadan iyo kan iyo wixii kale oo la midaba
inaanu ka gaarro haddii ilaahay idmo maxkamadduna insha allah ay ka gaarayso go-aan cadaalado kii ugu wanaagsanaayo waana mahadsantihi saxaafadda iyo dhammaan cid kasta oo fadhida waxaan ku salaamaya salaanta islaamka waxaan xilligan u qabanaynaa shirka jaraa'id inaan biliif yar ka siino bulshada puntland ama bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka bari dilkii foosha xumaa oo ku dhacay gabadhii marxuumaddii niciimo cabdi maxamed oo dhimatay ilaahay ha u naxariisto oo gacan ka xaqdaran ay dishay gabadhaas oo ay dileen maxamed cabdi faray iyo cabdiraxmaan maxamed isaaq labadaa nin oo BLA ahaa oo gaariga ku qaaday oo magaalada kula wareegay meelo ka mida tegey kuna dilay qaxootiga meeshiisa qiraalle ay ku yihiin meydkeedana dhigay jidka soddonka iyo saldhigga nuursalaad meel u dhexaysa halkaasna ay gaariga haddana dib ugu marsiiyeen qiraalle ay ku yihiin marka ilaahay mahaddiis weeye caawa inay qiraal yihiin ee bulshadana u sheegayno cid kasta oo gacan ka geysatay bulshadii gacanta ka geysatay dhammaantood bulshaweynta gobolka bari cid kasta oo gacan ka geysatay uga mahadcelinaynaa CID-da iyo xeerlaalintana aan aada ugu mahadcelinayo booliiskii ka shaqeeyay oo iyaguna soo qabanayay xogta raadinayay taliya saldhigyadii iyo cid kasta oo ku lug lahayd aan aada ugu mahadcelinayo inay caawa arrintaasu annaga ay naga jirto xeerlaalinta iyo maxkamadda jawaabtana aan ka sugayno maxkamadda jawaabtii ka bixin lahayd ilaahay baa soo muujiyey ilaahay baa iftiimiyey ilaahay baa soo bandhigay annagana dadaal baan samaynay aan waqti kasta gelinay waa shaqadayadii shukri cala waajib bay nagu ahayd laakiin ilaahay baa mahad leh haddii qof xilligaa intii la dilay cidlo intii la dhigay laga tegey aanu xoogga saaray bulshadii nala shaqaysay iyo booliiska qaybihiisuba ay gacanta kusoo dhigeen aad baan ugu mahadcelinayaa waa abaalmarintii aan bixinaynay maantii dhaweyto halkaan haddee guulahay ka mid tahay insha allah waxaan rajaynaynaa inay dad badani dhiiran doonaan bulshadana boqolkiiba boqol baan u mahadcelinayaa gobolka bari sida ay noola shaqeeyaan sida ilaamaha amniga ula shaqeeyaan siday xogta noo siiyaan aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan u malaynayaa bulsho isku xiran iyo booliis isku xiran haddii la helo waddanku nabad buu noqonayaa dadkuna isku soo dhawaanaya aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay xeerlaaliyaha iyo tiimkii baarayaasha ahaana gaar baan ugu mahadcelinayaa iyo taliyaha saldhigga bartamaha oo iyaguna si gaar ah baaritaan u mariyey waqti badanna ku bixiyey shaqadii aan u diray aad baan ugu mahadcelinayaa boqolkiiba boqol ah waxaan leeyahay waa taasoo aynu gola dhigaano bulshadana u shaqayno bulshadana waxaan leeyahay hal isdejiyo waxaan ku maqanahay cadaalad iyo waxa weeye waqti kastaba inaan gelin doono qof kasta oo dambi gala inaan cadaaladda geyn doono maxkamaddana cadaalad baan ka sugaynaa iyo garsoorka iyaguna waa dhegaysteen waqti badan bay ku celceliyeen caawa go-aamaday gaari lahayn iyagay u taalla laakiin annagaa sugaynaa insha allahu go-aan khayr baanana ka sugaynaa joodigii iyo waqtiga aan ku bixinana in naga farxin doonaan baan u malaynaynaa horaan u sheego waxaan idhi caasha bay la mid tahay gabadha tan laakiin ilaahay wuxuu nagu gooleeyay waqti dhow inaan helno caasha waa lagu raagay waqti badan bay qaatay laakiin kuwaan ilaahay waa noo soo fudeeyey aad iyo aad baa umahadsantihiin